Facebook haddii laga xidho qaabkii aad u soo ceshan lahayd ayaanu caawa ku qaadan doonaa barnaamijkan Facebook ayaan hadda guda geli doonaa su'aalaha qaabkii aad u soo ceshan lahayd Facebook-gaaga haddii laga jabsado ama laga xado. Okay, Gmail-ka iyo password-kayga ayaan geli doonaa si aan u guda galo Facebook-ga asxaabteeda qaaliga. markaanu talaabada qaadnay ayaan dhamaystiro password-ka iyo Gmail-kaba waxaan sii raaci doonaa talaabooyinka uu inoo tilmaami doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo Facebook-gu taasoo ay ka mid tahay inaan gelino ID card ama sharci haddii aad leedahay haddii aanad lahayn waxaad samaysan doontaa fake ID oo casharkii maantaan bixiyay uu ku saabsanaa. Okay, hadda waan dhammaystiray qaabkan ayaanu inoogu soo bixi doonaa get start taasoo micnaheedu yahay sii gudagal. Okay, haddii aynu gudagalno barnaamijka maxaa inoo soo bixi doonaa talaabadii ku xigta aynu wada aragno. daqiiqada markuu wareega haddii Ilaahay raalli ka noqdo wuxuu ku leeyahay your account has been disabled ama Facebook-gaaga guud ahaanba waa la joojiyay ama waa uu xidhan yahay haddii aad information dheeraad u baahan tahay sii gudagal buu ku leeyahay. Okay, haddaba waynu ka teginaa qaybtan waxaynu ka soo gelinaa qaybta Google-ha si aynu u tixraacno qaab qodobadan inoo tilmaamay haddii Ilaahay raalli ka noqdo. waxaan soo kaxaysan doonaa barnaamijka loo yaqaan Chrome ama Google-ha markaad timaado dhammaantiin oo isla garanaa waxaan ku qori doonaa disable on enable Facebook. inta markaan ku qorno waxaan sii gudagali doonaa waan ka doonaa my personal Facebook account is disabled Facebook help center-ka aynu geli doonaa ama xarunta dadka laga caawiyo Facebook-ka. Okay, hoos baynu soo dhaadhici doonaa isagoo sharaxaad fara badan bixinaya balse waxaan ka raaci doonaa kaliya muhiimada taas oo ah sida aynu soo ceshanay Facebook-geena haddii in laga jabsado ama uu naga xidhmo ama cilada ay ku timaado. Okay, haddii aad English taqaano kale waad si akhri doontaa muhiimada waad ka raaci doontaa. Okay, dawladda waxaanu tagi doonaa barta ay muhiimada tahay use this from the submit and appeal oo macnaheedu yahay appeal ka qaada haddii ay qalad farsamo ay kugu dhacay dawladda calaamada akhtarka waad arkaysaa dhammaanteen idin saaray iyada ayaanu ka dooranaa hadda ayaynu halkii ugu habboonayd. ugu horreyn halka koowaad waxaanu geli doonaa Gmail-kiina qaybta labaad waxaanu geli doonaa magaceena oo dhammaystiran halka ugu dambeysana waxa weeye halka laga rabo waa haddii aad leedahay ID card ama sharci ayaad gelin doontaa haddii aanad lahayna waxaad samaysan doontaa fake ID oo maanta casharkiisa idin dhigay haddii aad u baahantahay inaad description-ka ayaan idinku dhaafi doonaa. Okay, asxaabtada qaaliga inta markaan dhamaysto san baynu leenahay dabad wuxuu ku soo saaray labada muuqaale hoose oo ah ID card-ka inaad soo qaado geliso dawladda aad halka ka sii socdo. Assalaamu calaykum.